wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda Ukraine. dagaalka halkaasi ka taagan weli waxaad moodaa in culayskiisu dunida saaran yahay. isbedelo la doonayay in ay dagaaladaasi sameeyaan amaba dhinacyada kala duwan ayaan ilaa iyo hadda waxba ka hirgelin. marka la fiiriyo xaaladda iyo in ruushku weli uu dagaalo culus oo dhinaca badda, cirka iyo dhulka aba wado, haddana ay jiraan wadahadallo socda, ayaa waxa ay tahay mid keenaysa in wadahadalladaasi wax walba laga filan karo. cadaadiska reer galbeedka ayaa isaguna halkiisii kasii socda iyo isbahaysiga cunaqabataynada ee lagu dhibaataynayo hanaanka dagaalka ee wadanka ruushka. ilaa iyo hadda waxay wararku sheegayaan in si weyn looga dareemay guud ahaan xaaladda ruushka, xaaladaha dagaalada ayna dhaqaalihiisa wax badan iska bedeleen. cunaqabataynada ugu weyn ee reer galbeedku ay kusoo rogeen iyo Yurub ayaa waxay yihiin in gebi ahaanba diyaaradaha reer ruush ee u kala gooshi jiray wadamada Yurub la joojiyay. sidaas la mid ah ruushka ayaa isaguna dhinaciisa xayiraado kusoo rogay dhowr iyo 30 wadan diyaaradahooda, kuwaasi oo uu sheegay inaysan marnaba soo booqan karin wadankooda, hawadoodana ay ku duuli karin. wadanka UK oo ah wadamadii markii ugu horeysayba ay mamnuuceen ayaa qayb weyn haddana ka ah wadamada diyaaradahooda la mamnuucay. ilaa iyo hadda xaaladdu cambaarayn iyo cadaadis dheeraada oo marka ka dambeysa imanaya ayaa taag. waa midda ku qasabtay dhinacyadu inay wada hadallo sameeyaan. magaalo ku taalla xuduudda Belarus ayay wararku sheegayaan oo markii hore Ukrainiyiintu ay diidanayeen in wax wada hadal ay ku sameeyaan, ayay hadda ka socdaan wada xaajoodyo dhinacyada la isugu soo dhaweynayo. waxay wararku sheegayaan in hadda labada dhinacba ay ku qasbanaan doonaan inay xal gaaraan. xilli sii horeysay madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu dalbaday xabad joojin. inkasta oo wada hadalladan dhinacyadu ay mid walba shuruud wataan, haddana culayska soo wajahay dhinacyada ayaa waxa uu keeni doonaa in ay isku waafaqaan sida ay leeyihiin diblomaasiyiintu in ay xal arrintaasi ku saabsan gaaraan. inta badan ruushku waxaa la aaminsan yahay inuu shuruudihiisa soo dhigan doono. Ukraine shuruudo kale ayay wadataa, laakiin waxaa Ukraine cadaadis ku noqon doona wadamada reer galbeedka, NATO iyo Yurub oo gebi ahaanba dhagaha ka fureystay arrinta dagaalkan, marka laga reebo in ay dhinaca dhaqaalaha ama lacago iyo sidoo kale hub ay u dirayeen. madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron oo sheegay in uu khadka taleefanka isla saacado ka hor Putin kula hadlay, ayaa waxa uu sheegay in uu kala hadlay joojinta dagaalka iyo sidii loo soo afjari lahaa, iyo sidoo kale in duqeymaha aan la gaarsiinin meelaha ay dadka shacabka ku nool yihiin iyo goobaha muhiimka sida wadooyinka, si looga baaqsado buu yiri dhibaato shacabka soo gaarta. sidoo kale warbixin taa la mid ah oo looga jawaabayo criminalka ka soo baxday ayaa waxa iyadana lagu sheegay in madaxweyne Putin uu aqbalay arrinta uu Macron soo jeediyay haddii shuruudaha uu ruushku wato oo ay ugu horeyso arrinta nabadgelyada iyo danihiisa la oofinayo. waana midda la xasuusto in dagaalkan inta ugu badani uu ruushku leeyahay nabadgelyadanada ayaa lagu soo duulay isagoo adeegsanaya heshiiskii Warsaw Convention oo horey ay u wada gaareen. ciidamo u dhashay Ukraine oo sida la sheegay lagu weeraray jasiiradda Zimini ayaa waxaa la sheegay in ay weli nool yihiin, sida laga soo xigtay warar barta Facebook lagu daabacay. ciidamada badda ee Ukraine ayaa arrintaasi sheegay. waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ogaano in walaalaheen weli nool yihiin ayna nabad qabaan, ayaa lagu yiri warka. ciidamada badda ayaa 2 mar iska caabiyay duulaanka ruushka, laakiin ma awoodaan inay sii difaacaan jasiiradda, ayaa lagu yiri, amaba ay jasiiraddaasi isku sii difaacaan. qadkii lagula xiriirayay ee jasiiradda ayaa gebi ahaanba la gooyay. dadaalo lagu doonayay in dib lagula wareego ama loogu hagaajiyo khadkaasi ayaan miro dhalin, kadib markii ciidamada ruushku ay burburiyeen kaabayaashii ayay yiraahdeen ciidamada badda ee Ukraine.
waxay wararku sheegayaan in ciidamada badda oo ay leedahay Ukraine kuna sugnaa jasiiradaasi ay ciidamada Ruushku nolol ku qabteen ayna gacanta ku dhigeen xilligan sida ay wararka hadda soo baxaya sheegaya. Emmanuel Macron uu dadaalaya sidaasi la mid ah ra'iisul wasaaraha Ruushka ayaa isaguna dadaalo kala duwan bixinaya oo la xiriira arrimahan si xal waara loo gaaro. Wadamada reer galbeedku cadaadiskooda waa ay sii wadaan, reer Yurubna sidaasi la mid. Madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu isaguna saacado ka hor saxiixay qorshihii ama heshiiskii uu ku doonayay ku biirista midowda Yurub in ay Ukraine kaga mid noqoto. waa mid ka mid ah waxyaabaha uu aadka uga xumaaday wadanka Ruushku, inta badanna waxa uu ilaalinayaa sida uu sheegay nabadgelyadiisa oo waxa uu leeyahay haddii Ukraine la soo dego caqabad ayay anaga nagu tahay, waana mid aanan marnaba aqbali karin. wax kasta oo arintaas iyadaan uga hortagi karana aan samaynayno ayuu yiri madaxweynaha, amaba lagu yiri hadalka ka soo baxay aqalka kriminaalka ee looga arrimiyo wadanka Ruushka. in badan oo kamid ah wadamada cadaadiskaasi ayay wada Israa'iil oo la wada ogsoon yahay ra'iisul wasaaraha aan idhaahday madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inuu yahay nin Yahuudi ah haba ka soo jeeda Ukraine laakiin aaminsan, ayaa waxay wararku sheegayaan sababta ilaa iyo hadda Naftali Bennett iyo xukuumaddiisu aysan uga hadlin. waxaana arintaasi lagu sheegay in Israa'iiliyiintu ay si weyn uga fiirsanayaan xaaladahaasi maadaama ay xiriir la leeyihiin labada dalba oo ay aad isugu wanaagsan yihiin Ukraine iyo Ruushka. inta waxaa qoraal kooban oo uu soo dhigay baraha bulshada Naftali Bennett waxa uu ku sheegay in siyaasadda madax bannaan oo degan ay ku fiirinayaan xaaladda, dhinacyadana ugu yeerayaan sidii xal waara oo rasmi ah oo xiisada lagu dejiyo oo danaha dhinacyada ka shaqeynaya loo sameeyo, ayaa lagu yiri qoraalka Naftali Bennett. xaaladdu xilligan marba marka ka dambeysa waa ay kasii daraysa, waxaadna moodaa cadaadiska xooggan ee wadamada caalamku in uu marba marka ka dambeysa uu kasii daray. madaxweyne Putin ma filaynin xaaladda dhaqaalaha ee wadankiisu inay sida noqon doonto, ma uusan filaynin in hanaanka cunaqabataynada ee saa u waaweyn lagu samayn doono, laakiin isaga laftiisu waa nin meel wax ku og oo tallaabo kasta oo la qaado waa uu ka jawaabaya. hadal uu goor dhaweyta soo saaray oo qoraal ahaa waxa uu ku sheegay in xilligan marka la fiiriyo ay tahay reer galbeedku ay yihiin boqortooyo aan haba yaraatee wax run ay isu sheegin ama boqortooyada beenta sida uu hadalka u dhig. taasi oo micnaheedu ay tahay in intay war isu sheegaan warkaasi haddana aynan isku caawinin kagana dhabaynin, waana midda haysata buu yidhi hadda Ukraine, marnana waxba uma qaban doonaan. waxa ugu muhiimsan ee Ruushku doonayo waa inuu guud ahaan galaangal iyo saameyn ku yeesho xaaladda Ukraine iyo wadamada kaleeto ee midowgii Sovieti ka midka ahaan jiray. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.